ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Dekada oo 3 sano ugu dambeeyay ku guuleystay horyaalka Somali Premier League ayaa saag ka baxay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport iyagoo ku sii wajahan dalka Masar. waxay ka qayb galayaan tartanka CAF Champions League isreebkiisa. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kooxda Dekada ayaa safarka ciyaartoydii iyo macallimiinta ku weelinayay. xogayaha guud ee kooxda kubadda cagta ee Dekada Abdullahi Bash Kuwatro ayaa inta aysan xerada kooxda ka dhaqaaqin astaan u sheegay in rajadooda ay aad u wanaagsan tahay. waa ku dhawahay waa maasantiin maanta safaraan lahay waxaan u soconnaa dalka Masar kooxda Soomaaliga ee soo dhirinaa kambiyuunka Afrika waaye marka waa 29 sano la mooyay nasiibkeena Ilaahay ka dhigay in aan ka qayb galno marka insha Allah wax ummadda Soomaaliyeed ku farxado maxaa la rajaynayaa insha Allah guul rajaynaa insha Allah hadii uu leeyahay oo ummadda Soomaaliyeed ku farxado waa ognahay laakiin hadda ummadii dunyadii waa kubadda cagta waa la wada bartay marka Soomaaliga hore ma ah marka waxay aan la nimaadno ummadda Soomaaliyeed waxay ku farxadeen doontaa insha Allah hadii uu leeyahay. Dekada ayaa ku aadan kooxda kubadda cagta Al-Zamalek oo ka dhisan dalka Masar oo tartankan tiro dhowr jeer ku guuleysatay. waxaana labada kooxood kulankooda koowaad ay ciyaarayaan 11 bishan halka kulanka labaad ay ciyaarayaan 22 isla bishan. labada kulan ayaa ka dhici doono Qaahire Stadium oo dhaca dalka Masar.